السلام عليكم. جزاكم الله خير. الله أكبر. الله يغفر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد. انت كذب ولا ليال وهذه وذا السلام يا كلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحن كبرينا إنه نقدقو اجتماع يكون مباركة طيبة. إلهي الرالي كيهي انت إسوتي مدنا إلهي سبحانه وتعالى كرر لنقضه ذنوب تودنا ودافو موعودك يبلغت غيبك هنا نأركيننا الله نوذ الشيء كل جن. موضوعا سورة كسابسا يو تأملات كذا يو إن لقى فكره يتدبر كآياتها أنت أنا جود قلين وحاول كان الشيخ عبد الرحمن وبرنامج كنودا دهيني وحسوسيي قبل ولا شيء أو زوج كذا موت الفجأة وكيمد أو ما قرنا يشاء تيران يسن أيو يري إن أماركتي لو دعيو يذن إن إله قلبي هذا وسقو تاسع وحان إير كورن لها بابك صبرك وحد أوقاتا ولا لي أذيقو هي دمان ولا لها مغلي ودمبا دارتن الدنيا الليلة waxaa loo abuuray oo ilaahayba uu sameeyay inay kabad iyo nakad iyo mashaqo iyo mashaakil iyo masaa'ib noqoto meesha nabadgelyada iyo raaxada iyo barwaaqada aan kala go'aynin nolosha aan geerida lahayn dhalinyarada gabowga lahayn caafimaadkan cudurka lahayn weligeed naciim iyo barwaaqo lagu jirayo weliga aadan maqlaynin hebel baa dhintay iyo hebel baa ka dhintay midna waa tan dambe waa daarta dambe weeye tan ma aha tan waa inaad ku tala gashaa waad maqlaysaa qof kastoo jeceshahay haddii uu ka hormaro wuu dhintay hebel waad maqlaysaa adigana way soo gaari doontaa oo doorka uu ku soo gaari doonaa hebel wuu dhintay waad maqlaysaa waxa qudwa inoo ah adigana qudwa ku ah oo tilmaan iyo tusaale ku ah
أم سليم رضي الله عنها وزوجتي النبي أم سليم أو أهيد أنس بن مالك هو يدي أهيد أم سلمة زوجة النبي أهيد أم سليم صحابية جليلة أهيد أنس بن مالك هو يدي بأهيد isaga ka sheekeynaya hooyadii buu ka sheekeynaya waxa markaa qabay Abu Talha radiyallahu anhu fi sabiilillah baa loo baxay Abu Talha nabigu raacay wiilay dhashay oo wiilkiisa isagana ah oo buku ka tagay qisada waad wada garanaysaan walaakiin waa tadkiir iyo xusuusin iyo munaasabada walaasheen geerida xanuunka badan ay qabsatay baan u soo qaatay أبو طلحة مركي أي سو نقدين أو جهات كي لقى سو نقدي هبين كي قرقي سو كسو هيني مع النبضة مقالة سو قالين أم سليم وحي تري هرت ويل كي بعدنتي هبين كي ويل كي بعدنتي بكي أم سليم وحي كلا دردارنتي هوين كي حافظة ودم وحي تري أبو طلحة ينلو شيقين المهي سادنتي أنا كور أنا أو شيقاي sheegid yaa u sheegaysay arin cajiib lay noqotay horta guri geeri kamay dhigeen guri aroos bay ka dhigtay oo guriga waa qurxisay waa hagaajisay iyadeena waa isqurxisay oo aroosad bay iska dhigtay oo sidii lagu yaqiinay qof dumar oo ninkeedii ka maqnaa waa isqurxisay waliba wuxuu oranayaa tasannacat akthara mimma tasannacu min qablu sida isu qurxisay waligeed si ay isu qurxin bay isu qurxisay meesha waxa yaalana waa mayd kaasina qariib ma ahe waa ilmaheedii waa fildatu kabidiha waa gabal yaroo beerkeeda kamida meesha yaalo oo mayd ah gurigiina way qurxisay iyadana way isqurxisay Abu Talha markuu soo galay gurigiisii waxa la yiraahdaa ka shakinin in wax walba ay tamaam yihiin ilaa wax dhibaamuuna aragba ka bacdina cashadii bay u soo dhigtay cashadiisii buu iska cunay su'aalan buu weydiiyay wuxuu yiri wiilkaygii bukay ka warrama waxay tiri wiilkaagii huwa askanu ma yakun haduu ugu deganaansho badan yahay iyadoo run bay sheegtay isaguna si kale u fahmay runtay sheegtay waa maxay qof dhintay iyo qof nool waxa deganaansho badan kan dhintay isaguna wuxuu fahmay waa fiican yahay oo caafimaaday buu qaatay cuntadiisii cashadiisii buu iska cunay sidii markii dambe ahaan jirtay caadadu ahaydna xaaskiisii buu la kulmay hawshii markii uu dhamaystay ayay waxay ku tiri radiyallahu anha Abu Talha yadii baa la hadlaysaa waa qof dumara waxa dhintayna waa ilmaheedii Abu Talha ka waran hadii reer kale ay wax caariyayaan wax siiyaan waxbay caariyayeen waxbay weel bay ka qaateen qoladii wixii la caariyay ama weelkii lahayd qoladii lahayd baa dib igu soo celiyay oo dalabtay ma loo diiri karaa maya loo ma diiri karo iyaga ba iska leh hadaba waxay tiri wiilkeeni adigana wiilkaaga ahana wiilkayga ahaa yaa laha ilaahay baa laha soo ma aha ilaahay laha baa qaatay cariyo nagu ahaa ilaahay baa qaatay fahtasib ibnak asagii tagi ajirkiisa tirso oo yuusan ajirkiisa ku dhaafin waxana qayb la yiro wuxuu yiri taraktini hatta idha taladaqtu iska kaydaysay ila aan wax ka qasay kadib aad ii sheegaysaa miyaa wiilkayga orada waxay tiri iska dhaaf waxa soo ilmaha soo aasa waa qof dumara waxa dhintayna waa ilmaheedii maxaa u geeyay inay arintaas samayso shaki waxaan ku jirin inayna ka ahayn wax maadi ah ama xayawaani ah ama shahwa ah ama nin raqbadiisa ah waxay rabtaa waxan ay afka ka sheeganayso ridaha ilaahay ah ilaahay oo raalli baan ka ahay waxaad samaysay oo ficil inay tusto ilaahay subhanahu wa ta'ala inay xusniiso inay murugoto inay oydo ilin ka timaado looma diidin walaakin ilaahay bay rabtaa inay tusto muntaha ridaha meeshii ugu dambeysay inay gaadhay oo falkan iyo ficilkan iyo qadarkan ilaahay ay raalli ku tahay bay rabtaa inaad rabbiga tusto Abu Talha markuu nabiga arinta uga sheekeeyay radiyallahu anhu nabigu ku farxay qisadaas waana uu u duceeyay a'arastumul layla halay aroos ma samayseen ها أبو يري بارك الله في ليلتكما الله يدين بركيو إلهي وبركيو ويل
baa ilaahay caloosheedii ku guntay habeenkii barakaysan mar alla markii ay dhashayna Anas ibn Malik bay waxay ku tiri Anasow walaalka qaad oo nabiga u geey wallahi inaan calooshiisa aysan galaynin candhuufta iyo dhacaanka nabiga ka hor markaas in yaro timir bay u dhiibtay nabiga kaleey salaatu wasalaam baa loo geeyay dhabtiisu saaray timirtii ilmaha yar ma cuni kare ayuu nabigu u calaanjiyay ama aha oo maaragtay dhacaankii candhuuftii nabiga leh ayuu tahniik wax la yiraahdo sunnatu tahniik ayuu dhan xalagu ugu dhajiyay ilmihii markaas uu mudmudsaday wixii ugu horeeyay candhuuftii nabiga Muhammad ee barakaysnay sallallahu alayhi wasallam ay ahayd ilmihii calooshiisa gala wiil barakaysan buu noqday sagaal wiil oo kaasi uu dhalay wiilka uu dhalay ayaan arkay buu yiri ninkii raawiga ahaa oo kulligood qad qara'u quraanka aqriyay yani quraanka xifdigiisu wax weyn buu agtooda ka ahaa wuxuu la mid yahay zamankan oday ku faano yiri sagaal wiil oo wada doctoran dhalay ama sagaal wiil oo engineer aan leeyahay oo kale buu la mid yahay zamankaas sidoo u dhigmay yani waxaan uga jeedaa walaasheen ha sabirto cid alla cidii inaga mid ah oo geeri xanuun badan ay ku timaadana ha ogaado meeshan inay sidaas ay tahay xalkeedu waxa laga rabaa inaad aad u sabirto oo aad maaragtay ilaahayna uga raali noqoto ikhwaani hadalkaygii qayb badan ba halkaas uu ku tagay suuratul mu'minuun waa suurad magaceedu ba cajiib leeyahay oo suuratul mu'minuun bilow cajiib lay ku bilaabatay ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala tilmaamay liibaan yaa liibaanay qad aflaxa almu'minuun mafhuum bay leedahay oo mu'miniinta waxaan ahayn ma aysan aflaxin ma liibaanin waxaa la wixii liibaan lagu sheegayo oo dhan ama kula muuqda inay liibaan yihiin wax la cadcadeeyay iyo wax la madoobeeyay iyo wax la qurxiyay iyo wax adduunyo la taxayba kulligood liibaan ma aha waxa liibaanay mu'min baa liibaanay mu'miniinta sifadoodu ilaahay ka sheekeeyay kumuna darin inay lacag leeyihiin kumuna darin aqniyaa oo maal qabeen weeye muusan oranin guriyo badan iyo gabdho badan iyo xaasas badan iyo baabuur badan bay leeyihiin midna kuma ilaahay ma sheegin ilaahay sifooyin uu jecel yahay buu tilmaamay sifooyinka uu jecel yahay ayaa nala gudban kulligeen inaanu iska baarno oo nin walba uu baaro inta uu ka haysto sifo walba inta uu kaga sifoobay maxaad ka haysaa sifooyinka ilaahay uu jecel yahay uu tilmaamay oo uu sheegay in ay liibaaneen iyagu mafhuumkuna uu yahay inta kale ka soo hadhaynaysan liibaanin waa inaan si baadha ilaahay muxuu yiri marka subxaanahu wa tacaala markuu sifaynayay awal sifa min sifaati uu ilaahay jecel yahay horta waa iimaan oo qad aflaxa almu'minuun sifatu al-iimaan baa laga helay allah bay rumaysan yihiin rasuulkiisay rumaysan yihiin rususha ilaahay oo dhan bay rumeeyeen aakhiray rumaysan yihiin kutubta ilaahay bay rumaysan yihiin ghaybiyaadka waxa la yiraahdaa ee aan la arkaynin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farad yeelay in la rumeeyo arkaan al-iimaan oo dhan bay rumaysan yihiin mu'miniinna way saadiqiin awwal as-sifaat sifooyin kale ilaahay uu tilmaamay sifooyinka kale ilaahay uu tilmaamay wuxuu ka bilaabay salaada alladheena hum fi salatihim khashi'un الذين هم كوي أو في صلاتهم خاشعون صلاة ذكو خشوع سنا يعني صلاة مركي تكنيان خاشعين بآية أو خشوع بيلاهيان خشوع ومحي وأمر قلبي وقلبي وذا حاضرة إلهي بي سبحانه وتعالى هرتاقيهن عظم ذي إلهي وينانتي يا قلبي وذا كل عيا طبعا صلاة دي مركي استاقان بين يدي الله خشوعي قلبك يا عظمتي إلهي وينين يا يرانتي ويرى إلى وديرتها دول كان أتكتها أنت أنتد أضو أنتد كلا إكتها أضو أما أنتد أتكجوكتها دول كان كلوين أدي كلوين وحبا معها مركي لو بربردقو ملكوت كإلهي سبحانه وتعالى عالم الأفلاك كاسر يحدقها النجومته وبا كل حلوم يابا iyaguna badnaasho waxay leeyihiin qaruuraha iyo jeega dhulka in ka badan ba hadana waxa soo idinoo la isku daray markii la isku wada daro faraanti meel cid lagu turay noqonayaan hadii samada loo barbar dhigo samadan soke tan labaad saas ay u tahay tan labaad tan saddexaad saas ay u tahay
samaawaadka oo idil markii la isku wada daro carshiga ilaahay haddii loo barbar dhigo faraanti ama kaatun meel cidla lagu tuuray ayay noqonayaan carshiga ilaahay weynaantiisa intaa la eg ومن أعظم مخلوق من مخلوقات الله وإلهي مجدي وإلهي عظمي وتعظيمي ومخلوق إلهي بابوري سبحانه جل جلاله رب العرش العظيم بعد مركه هرتاج انتهي صلاته وكلنا إلهي لكل ما يسوي أيام دردا إن آدم هيشتا أني أدعو أن نكمل نهاي وحوي إلهي ويناه يا ملك الملوك يا ذو الجلال والإكرام يا أيا فسح كو فسحي كو أقلاد إن أدلك كلنتو مركز هذا كلن كيسي هذا قدرينين وذا قيمينين وإعادة كل نقطي ودخل سكالك عن نقطي بينما هدي لقوه يري لها مانتا نين مدحوين أدلك كل ميساء أما بقرب أدلك كل ميساء لقوه أوران لها بلنتها إساقا أدباد وإلالين لهيد واد إسكو قرحين لهيد waad hagaajin lahayd waad diyaarsan lahayd inaan su'aasha aad ula hortagayso ayna ka kala baahin meel baad ku sii qoran lahayd ninka hortagayso waa ninka magaalada ugu sareeya ama wadanka ugu sareeya ama boqor ama amiir ama ra'iis ama madaxweyne wuxuu doonaa ha noqdo waxa waa ku urursanaan lahaayeen ballantaasi waqti kasta ay tahay ma aadan ka garab marteen waa iman lahayd haddii lagu yiraahdo saqda dhexe habeenimo 12 habeenimo ama ba 1 habeenimo ama 2 habeenimo ayaa lagu helay kaalay diyaar baad u noqon lahayd maxaa yeelay waxa kugu dhameystiran makhluuqan aad hor istaagan tahay ama aad hor tagayso inuu xaajadaada ku gudayo in hawshaadu ay ku hargelayso in fadhiga aad la yeelatay arintaadu ay ku buuxsamayso maalin dhaweyd oo aan fogeyn toddobaad miyaan ka soo wareegay ayaan xafiis soo galay beesha qadareen joogo xafiiska waxaan ugu socday nin baan u shafaaca qaadayay oo aan rabay ninka madaxda inaan kala hadlo marka yarkii meesha u fadhiyay ninka sekreteerka u ahaa ayaan salaamay waxaan ninkan u socdaa una yaqaana kan marka yarkan sekreteerka garan maayo ninkan aan u socdaa waana i garanayaa oo hadduu magacayga maqla asagaaba ii imanaya waxaan rabaa inaan waxay oran jirteen reer xamarka inaan ku harowsado waxoogay ma garanaysa aan isu sheego ninka wuu yaqaanaa isagu ima garanaya kan almuhim waa yahay buu yidhi insha allah wuu mashquulsan yahay bal markuu mashquul ka noqdo aan arki doonaa waa isu soo banbaxnay marka waxaan idhi inaan dacwada ka faa'iido waxaan salaada ka warran cibaadadaada ka warran سيد قد داشا بعد إلهي كورن قيام الليل كورن أنا بتاسع لك علي هذا الكلام نكهني وحنا هدي له إلى وزيرك الرمها جودها اللي مش وزارة الرمها جودها هاي أي عاوة كدونية أو لبيه تومك هذا النمو ما تقله هذا والله ما تقله هدي له إلى أمير كودنك وقدر أمير كذا أي وقت كلا الوما هي لبده هذا النمو كدونية ما تقله ها والله وتقله ها أبدا شيخو مركي شيخ ما حد يكون كان قصة ذا سقى قصة أي شيء وحجري سفر بانها تعليم بان وحنو جري بويري ما شاء الله وأنا أسكري أو أن كترسن لماذا ما أسكرت شرطة بوليسكا أو جوازات كيو محلنا مigration كشقية تعليم بان وحنو جري بويري مصر مركب مصر امتحان بان تعليم أو امتحان كون بوتاقا ما هنا قدر بكبرتا أنا امتحان كي مالين تا أتجيب بيري وبريت امتحان كي وياها أنقل لها إن سنة كاسور لن كسر تلاقي أيا بلن أن كقب سدي وزير كارمها جودها أيا تلفون يقول صور داعي وحال لي بلنتي أتسوي شيء وبريته تضبطها يا برد أرور نمدي بالجدون يا هل كان ماشى الجدون وقدر ماشى وجوجنا ومصر وقت قال إلى سو حلينا وقالين كي دم بقى مالين تأكل رئيسي أدونك بقى لو رجوري سأل الله سأني يارو بلن تام باجين كرو برينا امتحان بان ليه هاي وحنقول كو قال يقولي إن الامتحان كاس كجوجي بلن تاسع قال مهم سد ديارة هذه ديارة مركي أن وحن هلا يقولي فرست جلاس أو العقبة اللي قات صور عيب
labiyo tobankii habeennimo ayaan ku soo degay buu ila qadar aroortii 7 barkana waa mawcidkii iyo ballantii wallahi ma seexan buu ila isuma keenin ballantaasi shay ila weyntahay iyo danta aan kale yahay iska soo jeeday buu yiri salaadii subax markaan tukaday anoo sideedii u soo jeeda ayaan 7 bar ma suginay markiiba waan kala huuyay meeshii dadkii waan sii tagay saa 20 baa iga horeysa ana raqam 21 baan noqday buu yiri sidii marba mid ugu galayay markii 21 la soo gaaray 20kii markay dhamaadeen ayuu wasiirkii wuxuu yiri waa daalanahay wixii hadda ka dambeeyay hal iska hoydo anigana wuxuu yiri diyaaradda aan ku imid hal imtixaan inuu idhaafo ma ku tala galay galabtiina mid kale ay booking garaysan oo inaan berrito uusan imtixaanka ii dhaafin waa adkaysan waayay ninkii marka sekreteerka uu haay madaxda ahaa baan isku duubay wuxuu yiri warniyo aniga xaalkayga aan kaaga warramo anu saasaan ahaa imtixaan baan berrito lahaa maalinta la ila soo hadlay waan baajiyay imtixaankii haddana galabta diyaarad baan leeyahay ma anfacayso sidan si uu iigal marka waxoogay uu ii naxay adigu wuxuu yiri sidii baa igu galiyay ninkii wasiirkii fadhigiina waa yeeshay mawcidkii ballantiina alxamdulilah galabtiina waan dhoofay waxaan arrintaad u socotay ma kugu hirgashay hawa ii hirgashay buu yiri oo waxaan rabay buu yiri garabku saa u taabtay hal xidig baan rabay buu yiri xidigtiina waa helay xidig baan rabo xidigtiina waan helay anigu dee cibra ii noqotay oo waxay ii noqotay waana ii noqotay isaguna wuxuu ii cadeeyay booska uu ka taagan yahay ballanta bani aadan makhluuq ah oo miskiina markaasaan dib ugu soo noqdo waxaan idhi kani waa wasiir ee kan ka sareeyay ee amiirka ah ama boqorka ah wadanka dhan waa makhluuq baahan oo inuu cunto cuno iyo inuu cabid cabo iyo inuu haddii cunto uu cuno inuu musqul uu galo oo umuurtiisa u sahlanaato ilaahay buu u baahan yahay inuu seexdo allah buu u baahan yahay inuu soo kaco ilaahay buu u baahan yahay isaga muxtaajaho faqiira ballantiisa saasay kula weyntahay fakayfa birabbil aalamiina maliki almuluki dil jalali wal ikram boqorada oo dhan boqorkoodii ka waran inaad marka kacdo oo habeenkii kacdo oo la kulanto kulan majaanana oo waxba laga rabin oo dan cid kuugu aad kuugu abal gudayso ama aad leedahay uu ii sahlan ilaahay baa ku siiyay laakiin maxaa naga maqan yaqiintii baa naga maqan basharkan makhluuqa ah in arrintaada xaajadaada uu ku guday waa ognahay laakiin xaajadaada in ilaahay ku guday wallaahi meel xun baan taaganahay waxaad arkaysaa nin baa bukoonaya ama qof baa bukoonaya waxaa lagu leeyahay meel kastaa la soo maray ilaahay baa noo haray oo ilaahay muxuu kugu haray oo ilaahay maxaad uga dhigaysa oo kan ugu dambeeya maxaad ilaahay uga dhigtay leesh limaada jacalta allaha aakhiran arrin baa kugu imanaysa kur baa kula soo gudboonaanaysa ما إلهي كبلودي أنت هذا الهبل كبلابن وذا الهبل وسقي ميهذا نوجين إن إلهي سبحانه وتعالى وكعافين كرو هدات بكتو عذر رد إلهي إن يسميهين هرجب أو شيء بسيطة إن كستو هذا هرجب حماضي ولا سوشك شيء هرجب وشيء بسيطة هي كنسل عذر رد هذا لو تاجلا يهي إلهي يكتشوا يسميهين إلهي هو يسوق مت وحبذ رميسنتهي الله رب العالمين إن أو قف دنتي نولين يه مقف بكو عافين واي إلهي هو عافين إلهي الشفاء عنده سهل لكن أذيك يقين هذه با وسخك شيء قلبك يبان نقوض البكاء سيدا أصدرت يدبع مركان ربك ينهرتها قلنا هيبان سوقك آذينا مالك لك شحينا إلهي مركدتك ليبانتا وقامي وقرري خشوع بكوت المامي يحضرون قلبهم رب العالمين إن هرتاجيهم بأوجيهن حاجة ذودن كان هيا أي هرتاجيهن إلهي إسكو سفيي إسكو تلمامي دتك استصي أي وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء وربك ربك الغني ذو الرحمة نحريس بدل نحريس صاحبه أبين شيخ علي سوفي وحورين جري آياتها مركز تو قريبا مرنا مول قفي جري
وربك الغني ذو الرحمة واستاجري وحول جري اللهم أنت الغني ذو الرحمة ونحن الفقراء ذو الحاجات. الغني ذو الرحمة ذو تاعي أنا ونوحنا هي فقراء ذي حاجوين كلها مساكين تابانونا. إخواني صلاة إنكم خشوعنا لقب الله بصلاة صوت الظهر كأها واحد يسكت إذا إني صلاة هاجي كرة يكدوناتو إن إلهي إن ظهر تاجن تيادوجاتو إن هذا سجل الله خطاب يسوع إياك وكاف الخطاب إياك أذيك أمبانو نعبد كعبدينا وإياك نستعين أذيك أمبانو كالميسنينا بعد الأورانيسا سجاد بريسا نهدنا الصراط المستقيم فأتحدى مركز أغرينا يسوع إن أتجرتو كان الله خطاب يسوع الله الله يسوع وكما ساسات خاشع كنا قنيسا صلاة هذا كده ذلنا خشوع يالته وحكلوا إلهي وكسف في يدك ونكسن والذين هم عن اللغو معرضون زمن اللغو بانو كجرا إلهي وحكوت المام يدك ونكسن هذه اللي باني إني لغو يردنا يكتجين أما اللغو حمود كان وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه شرك يوحنوا دم بس وقليه أما اللغو كان ما لا يعني وحبا فائدين إن ما أنت نقوة فربتي قرقا يقوله سكوس وقليه فيسبوك يو انستغرام يو أنا بمحوك لها بلا يدن كله فربضن بلا معناها بس هو ذا قالوا دت كاون وناكسن إلهي وحكوت المامي إني لغو يسجد سدان ووقت جوذا ملفي عن الجليان والذين هم عن اللغو معرضون بل صفة إنه سكبرناه قف ولبو إنك مذا إنتي نولشيسة لغوي إنتي جاد وهو حقيقة لو أبو ريئة بل تانا هاي سكبار قف والبا والذين هم للزكاة فاعلون نودي وزكدي بإلهي وكت المامي أو مانع الخير معها إيه زكدي ويفليان إلهي وكفر ديالي بل إيه وزيادين يان وصدقة ذي بطسنيان والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلهي آياتنا لبدا آياتنا وحكوت المامي يتنكدم بيس فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون غريزة إلهي بني آدم كوكو أبوري شهوة ويسود حقلي رقي ضمر حد با إلهي وسمي حد كاكو ودافع معها حد كاسي كسميهين وح الله وحكيني إن حدود إلهي قدبان أو أي وصو كيسو النظرة سهم من سهام إبليس وكي حديث كوها بيكرر رسونيان وإسكا إلى علينيان مركا صفة يو إلهي كسفي دتك وناكسن وحكلوا إلهي كسفي إن أمانة ذو إيه بلنت إلى عليان وحو إلهي كختم هذا إن صلوات كودا إلى عليان ومحافظين على الصلوات أيهين هذا أنا أفير سدي تأملات يتدبرات كقرآنك وحان أركي ميل كسته وإلهي الإنسان وحسو الإنسان لفظ الإنسان الإنسان وحويه جنسي جن إنسي ليرا إنسان كليرا ويان واسم جنسي للعموم إنسان هذه ليرا ميل كسته لقد خلقنا الإنسان أو كلي ميل كستو قرآنك أن أفير سدي لبشي أنبكاه الله إلهي مركو إنسانك أو شيء مر حقيقة ديسو كورما يبلوغيسي يسيد لغو أبوري مرنا معايبتيسو شيغا يا عيوبتيسا عيوبته أوليها إنسانكو شيغا ميل بدن إلهي مركو إنسانك تلماميو وحيالها دليشيسو إلهي تلماما لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلهي وحو كاستثنو ذي وكريبي إنسانك يا معايبتيسا يا عيبهيسا كوا كصفوا بصفاتك وإلهي جعلها سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا الهلع إلهي بفسر تفسير كلامه مبانا إذا مسه الشر جزوعا شر مركي وكل عي مصيبة كل عدو وجزعه صبر ما يوي
waad aragteen oo hadda gaalada qaar baa isdilayaba musiiba markay ku dhacdo way isdilayaaba waa jazac weeye waidaa massahu alkhayru khayr markii uu asiibo uu khayr uu helana waa manuucu bakhiil buu noqonayaa ila almusalliin kuwa tukada mooye laakiin waa kuwe aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun salaadoodu ay daa'im tahay daymuumatu salaa mar hadday safar yihiin hadday xadar yihiin hadday bukaan hadday caafimaad qabaan hadday mashquulsan yihiin hadday firaaqan yihiin hadday faraxsan yihiin hadday murugaysan yihiin marnaba salaada ka tegi maayaan fii kulli alaxwaal salaadoodu waa daa'im dhulka hadday joogaan diyaaradda hadday saaran yihiin diyaaraddana ku tukada diyaaradda haddaad fuusho salaadda ha ka tegin waana meeshii ugu wanaagsanaydeed kuba tukan lahaydee ugu macaasi yaraydee ilaahay ugu dhoweydba weeye marka salaada tuko oo hadday kuu suurtowdo inaad taagni ku tukato mustaqbila alqiblati fafcal samee diyaaradaha qaar baa waaweyn oo meelo fasaxa leh kuwa xunxunoo diyaaradaha qaarkood sida hadda tan qadariya oo kaleena way jiraanoo iyadoo diyaaraddii iska weyn tahay bay kuu diidayaanoo hore ha istaagin ha ka yeelin iska istaag mar haddaad istaagi karto waxaan la yaabay mar aanu new zealand iyo meelahaasoo aan aadnayo 7 saacadood diyaarad nala socotay 7 saacadood oo falad nan stop ah waxay ugu talagaleen meelo maadaama meelo la iska istaago oo ayagu ay maaragtay khamri iyo wax ku cabaan hadday rabaan oo ay ku faajaf haddana waxay ku dhaheen salaadii ha tukanno walla inaan idinka yeelin baa waxay salaadii fadhi ku tuko laakiin haddaa khamri cabaysa ama sheekeynaysa istaag weliba inaad istaagtaa fiican bay ku leeyihiin safarkaa dheer awgeys laakiin salaadii ha istaagin ha ka yeelin salaada istaag mustaqbila alqibla weliba diyaaraduhu way kuu sheegayaan qibladii xaggaasay kaa jirta oo tuko ilaahay wuu kugu jeclaanayaa subxaanahu jala jalaaluhu haddii ay ka fursan weydo ama diyaaradii ay dayiq tahay oo ciriiri tahay kursigaaga ku tuko laakiin isku day inta hore takbiiratu lixraamka cala alaqal iyo faatixada inaad istaag aad ku akhrisato qiyaamka yani ruknu lqiyaam rukuucdii iyo sujuudi iyo markay noqoto haddaad doonto markaa iska fariiso waa haddii aad laakiin marnaba salaada haga tegin weliba meeshaas oo kale salaada marnaba ha kaga tegin maxaa yeelay waxaad saaran tahay dayrka ama shimbirta ilaahay uu hayoogayo subxaanahu watacaala maa yumsikuhuna ila allah alam yarow ila adayri musakharaatin fii jawi الsamaa ma yumsikuhuna ila allah ina fii dalika laaayaati liqowmi yuuminuun ana shakhsiyan qanaacadayda cidna ku qasbi maayo aayaddaasi diyaaradaday tilmaamaysaa aayaddaasi maxay tilmaamaysaa diyaaraday tilmaamaysaa alam yarow ila الطayri musakharaatin fii jawi الsamaa'i maa yumsikuhuna ila allah waqti baan hadda jirin mooye arrintaa waxaan ugu qancayna waa idiin sheegi lahaa mar kale insha allah aan idinka sheekayn doona haddii alla yidhaah marka salaadoodu waa daa'im aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun والذين في أموالهم حق معلوم وزكدي والذين يصدقون بيوم الدين وصفة التصديق الدائمة دائم التصديق ليوم القيامة يوم القيامة يكون كإلهي مرنا بقلبي وذا كمرا مايو في كل الأوقات وحي حسوسيهن قيامي بحسوسيهن إن إلهي هرتيان بحسوسيهن إلهي سفكلوا دبردقيو والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون الله نسيه صفداس وصفة عجائب له إلهي وحكوت المامي ددك وناكسن إلهي وكسفي إن إنسان كمعايبتي سيكبد بعدين إن يهينك وعذابك إلهي كبقية محايل عذابك إلهي آمن موهلق ما آمن نقض انكروا يا أها أولياء الله الصالحين الأنبياء والأصفياء نبينا ياك خير بنا لا أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر ومع ذلك سجادتك وتقوى بنا صلاة هدو قالوا صدري سي لابتيسا جوح حسيد دري كركريا لجمع لجري أزيز كأزيز المرجل من الخوف من الله عز وجل نار جهنم هديه النبي ومغلى عليه الصلاة والسلام حالت با كم وقنجرتي قفك أركية وإسليه محوكم بقى النبي محمدين ونار قالوا صلوات الله وسلامه عليه وكان يخاف النار سيدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وادتك إلهي كان خير بدن بعد الأنبياء وحوها رجل أسيف بيتي مركي تلمامش عائشة رضي الله عنها إذا صلى بالناس دتك هدو مركا نبي أبو كوضي نبي مركو أبو بكر أمر دتك هتجيه عائشة وحيت يا رسول الله
أبو بكر وأن قلب جرح سنو صلاة هدو قالوا وهنت درت هذا يوسندتك أين قرآن كيس أين مغلين عمر يعدك لا أدر نبي وادي وحيد أبو بكر باتو جنية كان هكذا بكاء رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب وحليني لبدي سدان لبدي طبعا وحاها خط دولي الشمي من كثرة البكاء وهنتي سيبرني أيا اللي انتي كسعتي با جيحتي بالغولية هي سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر هو النبي إمي بشارة وبشارات كخاصك وحكم ذا وحولي جنة قالوا قصر قروح بدن بان أركيو قبر قروح بدن يهرتها قنتو مركان يسيري يا له قصر كان أن ويديينا وحال يقولين أو مضى أنا جاب محمد ما يا عمر بن الخطاب بعده مركاسان دمعي بيورينا قريه سجل قصريقو وحان حسوستي غير هذا يا مسير كاغا إن غير كاغا الوضع ومرأة جعلينه مركاسان اسكداي عمر وأوي رضي الله عنه عليك أغار يا رسول الله ما ذي كاغيرون لها يسووا انتهى سو دن رضي الله عنه وبشارات كأي أن لك لقوينين أي هذا مركو سيدي مني خوف وكقب عذاب الله عز وجل وهذا سعتان واد مقاشين حذيفة وياري رضي الله عنه وسرت النبي هيي ومقعيد المنافقين تسجارة والنبي وشيري وحير حذيفة وكانوا سكرات الموت كيبانا هي وحكى لكم ويدي سنيه مقعيد ما قدر النبي قولين كمنافقين تاني مقعيد ما كجرا حذيفة أنا أدبي وقت سرت النبي إنه فافيو إن بدن بو آموسي مركز دنبه وحيري سيدي عمر بن الخطاب كما جرتي المقعة كما جرتي المنافقين تا عد كلنا سيرة النبي وشيء ماي في سكرة الموت انت سو بشاروها يستا يا ليتني بأورنجري بالليل ما ليس لي ولا علي وحان خيرات كان إيو أمدا إيو فتوحات كا إيو إسلامي كا إيو يعني آلاف كإسلام كسوق لي وحا سو إذا المال انت اللي اسكدقو ما نكدح بحا أنا وحبنا كويا لنين وحبنا اللي إرى عنين كانوا يخافون العذاب ساسي صحابة رضي الله عنهم أي أهايين دائما التصديق أي أهايين حالا نوقبها هي مركة إخواني هذا الكيغ واسكسو قبقبين ياي صفات كاون وناكسن إلهي اللي بانت أو كتل مامي معايب الإنسانية وإلهي كغصوعي وحكالية وتنكلية إنه كوغانا إنه صفوة الخلق إنه نغنو وبهمية يا حيوان نمدو أن كتغنو بني آدم كا وإلهي كو أبو ريطين ديسا عجين الطيني لو بدي لقى أبو ريبي كو أبو رنتهي معايب تاس إنه بخيل نقضو إنه جبان نقضو إنه مقرنا يسا أناني نقضو إنه جزع نقضو صفات كحنحن أو إذل لو بدي يسا أي كو عجين انتهي وحاكلي وكاساري كرا صفات كإلهي جعلي هي إنها تكو صفودو وأذكبهدو تيات هشينا والحمد لله انت كان مقنا إن إلهي برد إنه كسيو لكن وحلقات دون يا جهدي يددان warkayga waa soo gabagabeeyay waana soo dhameeyay waxaan sadardaaran idin ka tagayaa naftayda iyo dadka walaalaha ee maqlaya rag iyo dumarba meel kasto joogtaanba ogaada diinta ilaahay mas'uul baad ka tihiin ad-da'wa ila Allah wat-tabliigh li diin Allah diinta ilaahay ina dadka gaarsiisaan rasuulka la soo diri maayo rasuushii nabi Muhammad baa ugu dambeeyay aqiidadeena samiimka ah waxa kamida inaad rumayso nabi Muhammad nabi ka dambeeyaa inuu san jirin ma rumaysanahay misamaya hada aragtan nin samada lalaya oo bilaaba yani iska duulaya oo yili nabi baan ahay ma ka yeeli lahayd waa maya dhulkii cirka haduu isku soo dumay xataa ka yeeli maysid aakhirul anbiyaa nabigeena wa alayhi salatu wasalaam wa khatiman nabiyyin ilaahi bayir inaad arinta aad aqeedaysan tahay waxa ka ratibmaysa ina adigu mas'uul diina tahay diinta ilaahay ina dadka gaarsiiso rag iyo dumar ba arintaasna waa u simeeyeen mashriqan wa maghriban baa laga doonaya jabaan cid kale sugi mayso baabuur bay iyada ku keentay adigu diinta ilaahay geey New Zealand aakhir ad-dunya anagoo marmarayna oo majmuuca saa u soconna qolo waxa xagga ku nool leeyahay muuro baa leeyahay hadaan khaldin muuro baa leeyahay qabaa'il al-muuro وهرق دادير عنده هودنا وحوجي وين داير يريهن وسيدا هنود مريكان كجوج جرتي عدانكم ماشي كإريدي وكله أيها هل كان عدانك يبقى يميدو كإريدي دور بقوله سنة كهر
bir kuwa kamida wathaniyiin weeye diin bilaa diin weeye ayaana arkay dharkeenu jeclaaday waa noo yimid waana salaamay maxaa tihiin muslimiin dharkiinaan jeclaaday buu yidhi adigu maxaa tahay oo anigu reerkanaan ahay reer muuro oo waddankano maxaad rumaysan tahay oo arrin yaab loo yeelo wuxuu yidhi annagu haddaanu qabiilka muuraha la yidhaa aanu nahay waa tashanay horta waxaa jirta buu yidhi isagaa sharax noo bixinaya waxaa jira buu yidhi 4 ilaah baa adduunka jira buu yidhi 4 ilaah ilaah waa ilaaha annagana abuuray buu yidhi qabiilkeenna muuro hal ilaah baan leenahay buu ilaahna waa kuwa shiinaha yaryar ee gaagaabanaya maaragtay abuuray kaasna hal ilaah bay leeyihiin caddaanka iyo ingiriiskana ilaah kale leeyihiin inta ka soo hadhow idinka ka mid tihiin hal ilaah baa idinku farayaraysto idin sameeyay marka 4 ilaah baa adduunyada isku dirayo wax dagaal dhacaya iyaga sabab uu abuu yiri oo maaragtay dadkii jugta isku haya marka qabiilkeenni qaraar baan gaarno waxaan 4 ilaah baan iska dayno oo bilaahi ilaahan iska noolaano yarkii ii tarjumayay markuu ii dhameeyay waxaan ku idhi waxaad ku tiraa waad khaldan tahay waliba ha u qarinina waad khaldan tahay oo ku yiri wuxuu yiri ninkan wuxuu ku leeyahay you are wrong waad khaldan tahay ninka waa yaabay waxaan idhi waxaad ku khaldan tahay تعدد الصانع مصنوعي لا يدل على تعدد الصانع وقت الوضع ماذا مياه حاشي طيب وحويري وقتها وحويري إلى هذا أفربتين لأن بني آدم كيف أكل الدون قاربان دير قاربان قابن قارن نير قارن دواوين وحان شركة تويوتا وميت كليل بابور واوين بيسميشا كوا يرير بيسميشا كوا إندا يرير بيسميشا كوا إندا واوين بيسميشا لكن وهمت كليه شركة تاس صور معها مركب وحين هرت هل إله باجرة لكن دتك وحوكل الدويسي وصنعتي وقطصو كوا مذو كوا عدان كوا إندا يرير كوا إندا واوين أرنتي بوكو قنعي صح ويبوري صح مركب وحين هرت هل إله وي أفر إله مجران مد كلا جرتان يعني dad kan Soomaalidan xagee ka yimaadeen Soomaaliya maxaa idin keenay halkan 25 saacadood oo diyaarada maxay u soo fuuleen ka idin ku yimaadeen taqriiban meelaha qaar kood 25 saacadood bay gaaraysaa maxay idin ku yimaadeen wuxuu yiri shan problem baa wadankoodii ka dhacay problemka wuxuu ka dhacay baan yiri laba istagaashay haday afar ahaan lahayn ka waran laba nin laba jib laba qabiil ama laba dawladood baa istagaalay waxaan afar ilaa haday ahaan lahaayeen dadka isku may direen iyaga isburburin lahaa mid dhulku la go'ay lahaa mid qorraxdu burburin lahaa marka adduunka dhanba waa burburi lahaa waa runta buu anu taa jabkay kama keenay waa quraankii law kana fihi alihatun illa allah la fasadata wariya dhamaantii ninkii waan ku heshiinay inuu hal ilaah jiro la ilaha illa allah buu ku dhawaaqay ninkii la ilaha illa allah buu yiri nabi maxamed baan rabaa inaan ka dhaadhacsiyo waxaan nin ba middle east bay dhahaano halka ilaahay noo soo diray maadaama ilaahay uu weeyahay oo kulligeen uu sanala wada hadlin ninbuu noo soo diray noo xil saaray maxamed baa leeyahay adiguna kiina uu ogolaaday adigu wariya dhamaantii ninkii meeshii buu ku ashhaatay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah masaajidkii buu sida noogu raacay in sha Allah waxaan rajaynaynaa inuu muslim noqdo waliba si wanaagsan islaamkiisa waxaan idinka doonaynaa marka mashriqan wa maghriban inaad diinta ilaahay geysaan ma aha Soomaali inay u qaxday inay yaani cunto iyo cabid iyo nabadgelyo shay doonteen ay sheegayaan ka helaan waxa ka weyn waxa iyagu idinka baahan yihiin ee diinta ilaahay faafiya Allah yuwaffiqna wa iyaakum lima yuhibbu wa yarda xamdiya xaashi unug sideed bari ka hor ka dhintay loo duceeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala hawda midhaafo wiilkaas dhintay xamdiya ay dhashay gabadha walaasheena geerida ku timidna ilaahay subhanahu wa ta'ala zawjkeeda Allah u naxariisto وجنة الله جيو يدنا سبر إيمان قلبي هذا الله كبوحيو دمان أنت مراد كأن مراد بانو لنا هاي مد والبقف والمراد كيس الله سيو مراد كيسو إله رالك يا الله سيو إلهي هنقدر كو أنفعه وهذا الإلهي كو انتفاعه ودت كان سيجار سيا ودعاة إلى الله وإلى رسول الله النقضة الله يوفقنا وإياكم لما يحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته